halkan waxaan kala hadlayaa nimanka la yiraahdo Mubaarak Cabdi Yuusuf iyo ninka la yiraahdo Saciid Ibraahim Dool xujaydu ku tahay nimankan xaadirinaya Maxamed Aadan Dacar baa maalin dhaweyd halkan taagnaa 12 ka qof halka ku jira Maxamed Aadan Dacar baa ka nool Ilaahay caafimaad iyo cimriga baa u siiyay inta 12 ka kalena Allah u naxariisto waxa uu tiriyay dhamaanba intan magacyadoodii aniguna waan ka daba maraya nimankaas challenge kaga dhigay ninkaasi waxa weeye waa macallinkii Maxamed Aadan Dacar sidoo sheegay waa Ismaaciil Cabdi waa basbaas ninkan waa Maxamed Aadan Dacar Ilaahay caafimaadkiisa cimriga baa u siiyay ninkaasi waa Xuseen Cali Kaahin oo dal fanaan aabihii ay ku garanaysaan Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ninkaasina waa Maxamed Axmed Kuluc Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo hooyadii fanka Shamis Abukar guduudo weeye halka ninka odayga soo taagan waa ninkii muusiga bilaabay waa Maxamed Saciid Faarax Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo halkan sida Maxamed Aadan Dacar sheegay waa Aamina Cabdilaahi Xirsi oo ahayd marwadii abwaanka weyn Cabdiqays oo Dacar sheegay inuu isagu dhowdhow ku tumeeyay ninkaasi Allah u naxariistay waa Xudaydi waad wada garanaysaan waa Xudaydi ninka waxa la yiraahdaa sida Maxamed Aadan Dacar sheegay inaguna aynu garanaynay muuqaalkiisa laga yaabay inaan waxa weeye waa Cali Cabdi Fayrus Allah Sare Axmed Jaamac oo Maxamed Aadan Dacar sheegay inay mar soo wada baxeen oo garasha garab weydii gorsal riwaayadii uu tilmaamay ay ku jireen Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo Sare Axmed Jaamac anagu soo gaarnay waan garanaynaa gabadh guba oo garasho fud oo cod macaan oo dhinac walba ka haystay saliga nabiga saha muxuu hayay wadaniyada kuwii halganka ciidantii oo ninkaasi waa balweeye Allah ninkaasi waa balweeye oo waxa uu sheegay Maxamed Aadan Dacar inuu xagga Djibouti uu kaga yimid ninka waxa la yiraahdaa waa ninkii riwaayadda soo alfay muxuu ahaa qaabada iyo xafladda iyo munaasabadda waxa weeye waa Ismaaciil Cagaf Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo Ismaaciil Cagaf oo soo gaaray intanba waxaan ku xujaynayaa dhamaanba fanaaniinta iyo inta ay ugu horeeyaan Saciid Ibraahim Dool Mubaarak Cabdi Yuusuf iyo qaar kale badan waxaan leeyahay intaasoo fanaan Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo marka laga reebo Maxamed Aadan Dacar waa idinku xuj inaad halka timaadaan oo aad sheegtaan aad baan idin salaamayaa Maxamed Muuse Banjir iyo Khadar oo idin la nabadgeliyo